السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكوثر سعيد كسر دواء عشان كأنه كوثر أونلاين بدقبك النفط أي تربية توصميها كهذا العيدن كلا هذا ترى كهراوي وأرق فضلا سبسكرايب ده تعيش هاي أرمها تربية دا إيو نبدقبك معرتي بدقبك النفط ما أنتم هنا كهذا سرت كدم بيسا أفتاجد qofka narsiisiga hadalka xidhashada hadalka uu ka xidhanayo laga yaabo mararka qaar inuu ayaama ka aamusnaado ama toddobaado ama bilaba haduu doono soo aan kula hadlaynin aduguna maaragtay aad uga maxdhaay marka sirta ka dambaysa maxay tahay soo dhawow waxaan sheegaynaa 6 arrimood oo uu ka rabo qofka narsiisiga ah aamusnaantiisa iyo aftaagiisa 6 arrin oo uu ka rabo dadka caadiga weyn ognahay markay wax rabaan ama wax diidaan ama wax maaragtay dalbanayaan way wada hadlaan way soo hor fadhiistaan qofka ama ha ku qanco waxa doonaysa ama ku qanin laakiin ruuxa narsiisiga ah marka uu arko inaad ku madax adeegaysid ama wuxuu raba aad rabin ama meeshu uu ku leeyahay soo rabeen aad u socotid si ka duwan aad u soconaysid wuxuu bilaabayaa wax la yiraahdo silent treatment oo ah inuu ka aamuso oo hadalka xidho oo maartay idinka guri ku wada nool hadana uu hadalka ka xidho kula hadli waayo dad weydiiso xataa ku jawaab waayo haduu wax ka rabo xataa aan ku weydiin laga yaabo inuu cid kale ku soo faro ama cid kale ku dhaho wixii waxa talo xaq u qabto adigoo cid kaliya taale jawaabta ayaan adiga tahay marka qofkaas muxuu ka wada afbuuridaas waaye arrinta koowaad horta isla fahanay ujeedada uu ka leeyahay marka koowaad waxa weeyaan inuu qofkan maartay ka dhigo mid hoggaansan mid maartay mar labaad gacantiisa ku soo noqdo mar labaad controlkii naftiisa qofkan dhibanaha controlkii naftiisa uu gacanta ka soo geliyaa qofka narsiisiga oo maartay uu sidoo doonayo uu wado marka wuxuu rabaa inuu ku hogaamiyo isagu adigu aanad shakhsiyad yeelan inaad saadi hore daciifnimada hore ku soo noqotid inaad maaragtay isdhiibitaankaagii iyo wax kasta uu isagu maaragtay xukunkeeda ku hayo inaad mar laad gacanta u gelisid buu rabaa oo adigu aad shakhsiyadaadii maadaama aad isku dayday inaad shakhsiyadaad leedahay madax la soo kaadid inaad baabisid oo aad hoggaankiisa ku soo noqotid laga yaabaa inaad xoog ku diidin oo maaragtay waxa isku diideen aan jirin laakiin uu rabo inuu dhibaato ku gaarsiiyo dhibaatadaas oo ah mid maaragtay mid nafsiya mid maskaxiyana mid fikriya uu rabo inuu ku dhibaateeyo oo maaragtay kugu dhibaateeyo aamusnaantiisa iyo hadalka goosiga way qofka bini'aadanka weyn ognahay wada hadalku waa qayb kamid ah maaragtay isweheshiga bini'aadanka dadku markay wada hadlaan way communicate sameeyaan de waa bini'aadanimadii ay ka mid tahay maaragtay inay dadku wada hadalka ay ku nafisaan qolaba la hadasho oo haday wax isku doonayaan wax isku diidayaan muhiimadii la wada xiriiro taasoo ka xidhanaya waliba waxay sii daran tahay qofkani marka uu yahay qof maaragtay meel weyn kaga jira noloshaada sida in waalidka yahay inay xaaskaaga tahay ama inuu maaragtay ninkaaga yahay ama inuu walaalka yahay ama walaasha tahay yani cid sokeeyo ku ah cid ku dhow oo maaragtay arrin hadalkiisu muhiim ku yahay marka ayagu waxay doonayaan in ay ku dhibaateeyaan ay dib ku soo gaarsiiyaan way u bareerayaan inay kugu fikriyan ku dhibaan nafsiyan ku dhibaan hadii maanta aad qofka ka cabo oo waxba ugu sameeyay dhehna waxa la waxaad ku haysaa ma jirto waayo wax la taaban kara maaha waa arrin gudeed dhibaatadaas arrinta saddexaad laga yaabo inuu uga golnayo waxa weeyaan inuu dub u helo narcissistic supply ama inuu quudiyo narcissisnimadiisa maadaama uu maartay dareemayo inaad si uga sii farabaxaysid in maartay gacantii birtaaydu kugu hayay inaad si uga sii maartay uga sii durdurkaysid marka oo maartay quudintii narcissisnimadiisa aad maartay aad ka goysay inaad quudiso narcissisnimadiisa oo hadalkiisii maagidiisii kula yeelan weyday macna kula yeelan weyday waa maartay amaradiisan de ku takrifalka aad dhigtaan ka maqasho dhigtaan ka sideyso oo canaantiisa faraha badnayd ama canaanteedii faraha badnayd aad qaxwo ka soo qaadi weydid oo noloshaada iska wadatid oo saameyn ku yeelan weyday marka wuxuu doonayaa qofkaas mar labaad inuu helo narcissistic supply oo tiraahid maxaa kugu dhacay isweydiisid maxaa ku helay maxaan sameeyay maxaan yeelay bal ila hadalum aad baridid in lagu la hadlo ila hadalum iisha waxaad aad doonayso inaan bedelo waxaan sameeyay leeday bedel waan bedelayaa
arinta afraad ee laga yaabo inuu ka rabo aamusnaantiisa waxa weeyaan qofka narcissistka wuxuu rabaa inaad isduleysid inaad baridid inaad raali gelisid inaad maaragtay tahay isaamax maba garanayo ma ogi waxaan khalday laakiin kale wuxuun baa khalday iska kay saamax iga raali ahow maxaan sameeyaa maxaan yeelaa maxaad ku raali ahaanaysaa waxa sidan weyn kaaga cadhaysiiyay maaragtay aad ila hadli weyday adii arki kar la-dahay waa maxay isagu intaasaa farxad gelinaysa qof ciladaysan ma soo maaha intaasaa farxad u ah inaad maaragtay halkaas aad dhulka isla dhacaysid adiguna waa iska niyadsanta waxaa sida ruuxani waxa aad gashay oo aad gudday baa saa ka dhigay laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan in uu maaragtay intaas ka helayo narcissistic supply ama quudin narcisnimadiisa uu quudinayo intaa inaad maaragtay aad doonayso inaad raali geliso maaragtay aad doonayso hadalkiisa aad doonayso la xiriiridiisa ayaa isaga wax u ah oo wax ka dhiganaya arinta lixaad ee laga yaabo maaragtay qofka narcissiga inuu aamusnaantan iyo taagidan iyo dudidan uu danta uu ka leeyahay waxa weeyaan inuu qofkan dareensiyo inuu yahay qofka dhibanaha inuu dareensiyo inuu yahay dambiile ay tahay inuu maaragtay dubisku ku noqdo oo ka fakaro oo habeenkii seexan weydo waad isweydiiso oo cuni weydid waad isweydiiso maxaan sameeyey talow ma arrintiisa ahayd buu iga xanaaqsan yahay talow maalintii aan qoyskayga u tagay uu ka xanaaqay talow maalintii aan saaxiibadaha aan maaragtay aan u tagay ayuu ka xanaaqay talow deetana aad gebigaagu buuga xusuusu kugu furmaa oo dembi aad dareentid garan maysid dembiga goortaad gashay iyo xataa lagu odhanaya dembigaasaad gashay laakiin laylis baa lagu diraya aad garanay yani halka uu socdo deetana dembi baa lagu dareensiinaya adigana waa adigaas raaligelin iyo soo wada baxay adigoon garanaynin adiga maaragtay jafi lagu dhigay ay tahay yaana dembi aad gashay aanay jiran qodobka lixaad ee laga yaaba inay ka rabaan aamusnaantoodan waxa weeyaan uguna dambeeya qofkan fariin bay u dirayaan waxay dareensiinayaan joogitaankaaga iyo maqnaashahaaga aniga way sugay mid agtayda waxa laala waxaad ka tahay ma jirto yacni joogitaankaaga waxaan ka jecelahay maqnaashahaaga inaan kaa aamusaan ka doorbidayaa inaad ila hadasho hadalkaaga dhegeysta ama uu dhegteeda kusoo dhaco waa yasid sida u taala qofkan baa la yasayaa waa la bahdilayaa waa la hooseysiin baa la dareensiinayaa waxa la dareensiinayaa inuu kaa maarmay qofkani ee adiguna aad ka maarmi karayn yani waan kaa maarmay aduu ma iga maarmi kartaa fariin laga yaabo qofkan wanigan hore kuusoo inuu yahay qof waalidkuwa ama qof maaragtay booskaaga qofka shaqaysta ama lamaanahaagaba ama walaalaha ama walaasha ama walaalka ama qof is jeceshiinba dabeetana qofkiisan maaragtay markuu ku hooseysiyo kuraa wax laala waxaad tahay agteeda ka tahay ma jirto nafsiyan qofkii uu burburaya waliba hal marna ma sameeyaan markay u baahdaanba way sameeyaan waliba narcissiga cover narcissistic kan la yiraahdo narcissiga daahan ayaa aad u isticmaala aamusnaantan iyo aftaaga iyo maaragtay inuu qofka sidan ula dhaqmo marka insha Allah xalqadan waxay kaga hadlaynaa qofku markuu ka aamuso qofka narcissigu maxaad kula gudboon maxay tahay inaad sameysid seebay tahay inaad la dhaqantid maxay tahay waxa tahay inay weydiiso maxay tahay waxa tahay inaad weydiin maxay tahay insha Allah intaan xalqad la mid mar kale kulmayno waa walaashin ka sartii channelka hala taageero yaa subscribe hala dhaho hala maxaa la dhahaa share gareeyo gruubada ku share gareeya dadkeenu aad iyo aad maartay kuma baraarugsan arrimahaas haddana aad bay bulshooyinka ugu badeen waqtiyadan waliba ay ugu soo badanayaan marka aad ku mahadsantahay ilaa halkan soo gaadheen fadlan kana taga commentiyo ya ku qor xagga hoose insha Allah assalaamu calaykum wayno insha Allah xalqad dambe